halkan waa jaamacadda Hargeysa sanadkan maxaa ku cusub jaamacadda Hargeysa waxa ay soo kordhisay program cusub oo ka duwan programmada kale ee ay jaamacadu bixiyaan hadaba programkani wuxuu kaga duwan yahay programmada kale jaamacadu bixiyaan faculty-gan statistics and data science oo jaamacadda Hargeysa kaliya ayaa bixisa jaamacadda Hargeysa oo markii ugu horeysay ku aasaastay waxa la yiraahdo faculty of statistics mathematics with management dib ayaa la bedelay waxba laga bedelay waxana laga dhigay faculty of statistics and mathematics waxana la bedelay 2016 hadda oo ah 2023 waxa dib loo bedelay waxa la yiraahdo faculty oo lagu sameeyay review dib eegis lagu sameeyay faculty-na cusub ama noqon doona imika waxa la faculty of statistics and data science hadaba faculty cusub ee statistics and data science muxuu kaga duwan yahay fakalada kale ay jaamacadu bixiyaan programkan cusubi wuxuu kaga duwan yahay programmada jaamacadaha kala bixiyaan waa program practical ah waa program saraw qaaday research-ka waa program saraw qaaday waxa la demographiga waa program saraw qaaday waxa la yiraahdo maxay economiga iyo dhaqaalaha waa program saraw qaaday qaabku ardaygu u sameyn lahaa waxa la yiraahdo maxay survey oo ardaygu u sameyn lahaa census-kana aqoon wanaagsan oo kaga heli lahaa sidoo kale faculty cusub ardayga bartaa maxaa lagu baraa faculty of statistics and data science waxa uu ardaygu qaadan doonaa in ka badan 12 package oo kala duwan oo iskugu jira statistical packages iyo statistical programs programska cusub ee hadda aan ku soo darnay waxa kamid ah ardayda si waliba practical ardaygu heli doono inuu ardaygu baran doono waxa la yiraahdo statistical programska sida Python-ka waxa la yiraahdo data structure and algorithm-ka waxa la yiraahdo database management system-ka ku qaadan doono waxa la yiraahdo SQL-ka waxa la yiraahdo data visualization oo ay ku qaadan doono waxa la yiraahdo Tableau iyo waxa la yiraahdo Power BI ay ku qaadan doonaan waxa ardaygu oo baran doona waxa kamid ah R-kiiba kamid ah waxa kamid ah Excel-kiiba kamid ah waxa kamid ah EVU-ga kamid ah waxa kamid ah waxa la yiraahdo programskan awood ay ku saari doona waxa la data visualization in arday soo saari kara aynu sameeyno waxaanu ku soo kordhinay waxa la yiraahdo mobile data collection oo ardaygu intuu kuliyada ku jiro oo ku arki doona practical fara badan isagoo fields fara badan heli doona isagoo sameyn doona data collection fara badan isagoo qaadan doona waxa la yiraahdo mobile data collection iska sida koobaha waxa iyo siyaasba ayuu insha Allah ayuu qaadan doona sidoo kale waxaynu saari doonaa ardayga awood u saari doona statistical modeling ama waxa la modelada xogaha lagu analyze kareeyo isagoo practical iyo theory ba oo ardaygu ku heli doona insha Allah balse su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay ardaygu markuu fakalka cusub barto waa sidee suuqa shaqadu marka aan eegno ardaydii fakalka ka qalin jabisay iyo waxay ka faa'iideen ardayga waxaan kaga baxnay aad u tiro badan intii aan kaga baxnay ardayda boqol hadda waan ku wada shaqeynaa faculty sida laga aaminsan yahay iyo run ahaantii sida uu suuqa iyo marketka uu faa'iido u leeyahay isuma dhaw run ahaantii faculty-kan waxa loo karnaa waa faculty hadii waxa weeyaan badi maanta Soomaaliland dhan walba haday noqoto wasaaradii haday noqoto waxbarashadii haday noqoto caafimaadkii dhan walba maanta faculty-kaas uu galeeyaa oo meel walba waa looga baahan yahay qayb statistics investment companies ka shaqeyn kara bangiyadu ka shaqeyn kara qofka ka qalin jabiyay statistics ka ama data science ka insurance companies ka ama caymiska shirkado kumbiyada ka shaqeyn kara wuxuu ka shaqeyn karaa adeegyada caafimaadka wixii la xiriiro dhan waxbarashada sare ama jaamacadaha ayuu ka shaqeyn karaa oo shaqeyn kara wuxuu ka shaqeyn karaa hay'adaha sharci dejinta wuxuu ka shaqeyn karaa ciyaaraha wuxuu ka shaqeyn karaa transportka ama isku socodka hay'adaha ka shaqeeya wuxuu ka shaqeyn karaa hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha dalka laga leeyahay ayuu ka shaqeyn karaa wuxuu ka shaqeyn karaa hay'adaha UN-ta wuxuu ka shaqeyn karaa international statistics organizations-ka xogtu waxa ay muhiim u tahay horumarka dal leeyahay haddii aynan xog haysan dalna ma qorshayn karo mana mala awaali karo mana darasi karo horumarkiisa xogtu waa hagaha horumarka dal leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa marka xog la helo ayaa tala la helaa haddaba haddaad doonayso inaad ka mid noqoto ardayda baranaysa fakalkan waxaad booqan kartaa xarunta jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda statistics and data science taasoo aan rajaynayo markaad aqoontan barato inaad ka faa'iidi doonto aqoon aad dalkaaga iyo dadkaaga ku anfacdo
sidaas darteed qayb ka noqo fursadan qaali iyo fokalkan ay kusoo kordhisay jaamacadda Hargeysa.